السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء عشر كيني لبعض lesson 2 look up كأها عشر هراي نو سعودية وأها كان هره وأن كسر قبلنا expenses كي سمعنا كدينا قفل بوحة ندري إنه صدق حتى table مدول بوفره كنا رح قرأ مقاعد اللي ترى قال for example سيدا فندرس كأكله فندرس وتفرع ساكت إنه حتكون قرأ سا مقاعد كان عسته برضه جسنا وتفرع سا حتكون قرأ سا مقاعد ألعابها كستومر كيسجن واد فريسة واحد بدح فريسة مقاعد معاميشة أفرتن تيبلنا ميد والبدورة كان سميه له هالفوم يهالرباط بعد تيسر أي تمسك فرصام واحد كسمينا سا هالفوم يهالرباط سيدو كسمينا سامرك أنت هتكون تشيدو تيبل كاجي بعد كده بنتيجي سا فوم كي هل حبات كسمينا سا أنت دو جلسات فينش لا هاي كده إن هالكاس على جوسا من تونا مركات كارد ما يسوا هي هدنا مركلا كنا قلنا سا كرييت كي haddana report baad sameynaysaa report ka hoose akhtarka ah wada gelinaysaa finish baad leedahay waxa ku sameyn doona report-ka wanagan marka hadda halku ku sameynay xabad kasta waxaynu u sameynay xabad form iyo xabad report saan hore ku soo sheegay ama ashirkii hore qofkan marka ashirkii hore soo daawan kan ila ma socon karo marka waa inaad ila socotaa insha Allah hadaba ashirka maanta wuxuu ku saabsan yahay waxa weey qaybahan soo aragnay qayb kamid ah waxaynu sameyn doonaa hadii Ilaahay idmo فندرسكا isaga waxa la yiraahdo waa ganacsatada product waa alaabihi purchase waa alaab soo iibsasho xabad fahmi xabad ribooda ka samee iyaga ku hoosaba waxa ka hooseeya Allah musta'aan customer risk waa macaamiishi sold item waa alaab si iibinti ama si gadid sida uu taqaano account receivable waa deyn bixin weeye iyo expenses oo qarashaadkiisa hadaba shaqada aynu qaban doono waxa weeye totalka aynu soo saari doonaa totalka purchase-ka iyo sold item-ka totalkooda labadaas total u sameyn doonaa totalkaas waxa uu kala yahay midna waa total midna waa amount labadaba sanad ku soo saari doontaa marka equal baad doontaa qaacidadan aad isticmaali doontaa hadii amount yahayna qaacidadan dambe aad isticmaali doontaa adoo wixii meesha kugu qoran unit price ama unit cost ki uu yahay umbaad quantity ku dhafan doontaa waxaynu soo saari doonaa totalka hoose oo aan u sameyn doonaa report-ka loo yaqaan sum total baa loo yaqaan waa totalka guud weey for example hadda marka aan furo report-kan alaabaan ku soo iibsaday waxaan u baahanaynaa totalkan soo saaro totalkan marka aan soo saaro waxaan u baahanahay total hoose oo lacagtan isku geynteeda hoose ah waayahay kaasna waa soo saari doonaa waxaan ku dameysiin doonaa query wizard wax la yiraahdo oo macnaheedu yahay qofka deyn ka qaatay deyn bixin waa taqaanay account receivable waa deyntii deynta qofka ka qaatay ee marka qaatay ee laba ka qaatay saddex ka qaatay ee afar ka qaatay inaad wixii isku geyn karto ayaa la yiraahdaa maxay query wizard waxaynu sameyn doonaa kaas okay waxaan ku horeynayaa marka purchase-ka si aan ugu soo saaro totalkiisa shalayna soo saaraan maalinta 10kii hore waa kan marka hadii aanad kii hore la haysan waxaad oranaysaa right click waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay design view marka aad tagto waxaad masixi doontaa halka ay total ugu qoran tahay عشان كده دي بقول لعبة توتال كان مسح كده قاعدة فوق قاعدة أكون شيء وقاعدة سوي هلك أكون تعالى وأنا هلك أكون قريب مركز صوت هلك أنا بقول قريب وحوي هلك أنا قريب هذا هلك أبصر مالك بقول قريب هاي ترى هلك أنت ترى تكون قريب هلك أنا دي قيمها بقول قريب هلك قيمها تكون قريب مهمة اللي بدرس قراري خاص الريو حي كقرن وبعدين كقرن سائق ولا تكون رئيسين سا براكدية هذا استعمال السمرك براكدية هذا استعمال سوا كوي براكدية هذا استعمال سوا حوي اوكي براكدية هذا استعمال سوا كوا سوي بس شفت لما قبلني ده شفت اللي قبلت محل دعاية كاسة سمي اسمه صالح اوكي marka waxba shifti hal qaban b4 ben wataasi bracket kaas isticmaal saad furaysaa kaana wad xidhaysaa marka hadii aad shifti la qabato ka qalo sameeyo kaana lama furayo kaana lama xidhayo waa bracketida taagan weey kaas aad furaysaa kaas aad xidhaysaa for example kaasi waan dhameeyay waxaan u baahanahay kan inaan u sameeyo totalkiisi iyo sum totalkiisi okay right click kadibna design view waxaan masaxayaa totalkan hoose markii hore labada total saasi isu garab yaaleen laakiin hadda way soo siyaalaan totalkan aan masaxayaa qaacidadii hadda ayaan ku qorayaa marka waxay ahayd qaacidadii hadda okay waxay ahayd equal qaws fur baa lagu yiri qty quantity aan soo gaabanay qawska xid lagu dhuftay dheh haye
qowska fur maxaa ku xiga quantity-ga unit cost cost xid qowski waa kii waa kaas okay waxaan sameeyaa markaa inta marka aan sameeyo waxaan leeyahay close kaanu sameynaya waa purchaser-ka la socaya close baan leeyahay yes baan leeyahay waa purchaser-ka report-ka hadda maxaan soo saaray totalkii baan soo saaray kana aan totalkiisa soo saaray isagana xagan aan tago totalkiisa shalay baan soo saaray cashirka hore la socoto haddii marka aan la socon right click baad oran waxa tagal ka design view ku qoran tahay halka amount baa ku qoran soo amount ma qoran halka amount baa ku qoran amount-ga sad masixi qaacidadana xagan gelin marka adoo barakadii isticmaalaya yaad xagan gelin doontaa taas waa ka waayahay waxaan u baahanahay sold item-ka report-kiisa inaan totalkiisa soo saaro oo hadda kan xakan aan kugu sheegay maxaan ku yiri hadday total tahay iyo hadday amount tahay labadan qaacido mar midkood isticmaalay hadduu meesha price ku tahayna kanaad isticmaal hadday cost ku tahayna kanaad isticmaal okay waxaan leeyahay right click sidii kii hore design view baa leeyahay kadib halka total bay dad xasuuto markii hore hadda maxay noqotay amount ku dhufo qaacidadan masax markaa intii uu isticmaal equal qowska fur ay maxay q ty qowska xid lagu dhuftay dheh haye waxay isticmaalaysaa lagu dhuftayda shift iyo number 8 baad isticmaalaysaa okay shift iyo number 8 baad isticmaalaysaa okay haye qowska fur waxa ku xiga unit price baa ku xiga qowskana xid close waa inta kaliya ogsoonow in hal qaacidada saxda waxay ku xiran tahay kaliya labada qoraal meesha ku yaala inaad saxdo spelling-kooda close yes hadda waxaan soo saaray totaladii kan waxaan soo saaray totalkiisii 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 intaas total loo sameeyay total kale oo labaad bay xaray oo la yiraahdo sum totalka guud qaacidada inaad isticmaalaysaa markaa equal sum bracket-kii weynaa baad furi okay saasoo isticmaal doontaa okay waxaan rabaa kan la isku soo geeyo labadan alaabood 60ka iyo 36 right click design view-ga ku laabo waxaad tegaysaa halka sare ay ku qoran tahay text box baa tegi waad soo socon marka halka amount-ga la siman inta blue ah ayaad ku dhufan halkaan aad ku dhex jiidiyo qaacidadii baad ku qori markaa maxay ahayd qaacidadii dad xasuuto حوي equal sum waa isu geeyay shift iyo plus 9 haye bracketadeen yar afar markaa qaacidadeen yar ku qor qty xir qowski keeni toosna way qowsku lagu dhuftay dhe qowski yar afar unit cost mise unit price midkii uu ku yahay markaa waa unit price qowski yar xid kii weynaana shift iyo number 9 number 0 ku xidh okay waxaad ka horeysiisay okay waxaad ka horeysiisay equal sum baad ka horeysiisay isku gee halkan waxa ku yaala text box haddii aad qaad istiraado kan kala qaadmay marka saas uu qaadmay marka si aad isugu dhaweysanto halkaad u istaagto calaamadda markay ku soo baxdo sidaa u yarjiid xogaa ku dul faqraalkan si aad u qurxiso hold ka dhig fartu waa 9 10 ka dhig ama 12 sidoo kale waxaan doonaynaa calaamadii raaciso dollarka right click halkaasi properties tag markaa halka format-ka hoosteeda waa in format ka soo baxdo laakiin waa goorma oo markaad kan doorato way wata format soo baxday halkaas aan furaynaa waxaanu ka dhigaynaa currency lacag nooga dhig calaamadii noo raaciyo dollarka qoraalkana masax text 17 uu ku qoran yahay waxaad ku qoraysaa sum total way totalka guud baa loo yaqaanaa totalka guud inta marka aad sameeysaad kale u leedahay kadibna yes baa leedahay haddaynu furno hadda waxaynu arkaynaa 60 ama 96 iyo $6 inuu yahay totalka alaabta
aan iibinayno ama aan iibinay dhammaantood inta isku taagantahay imika waxoogaa waxaad moodaa amountigu inuu waxoogaa ka baxsan yahay kan markaa waan la simi karaa hadda kaasaan tegi kan aan ku dhufan daan doono waxaan ka odhaniba midigu taga loo saas close yes kadibna waa furi waxoogaa haddana waxaad moodaa inuu dhinacan dhaafay marka halkaa inuu ila simaan raba saan u simi karaa design view baan ku laaban waan ku jiidi marka hore bidix baan doortay hadda center baan dooran dhexdayge close yes qoraalka dhexdiisa weeyaan macnaha okay saasuu sax iigu yahay haddii markaa alaabtii aan ku darna alaab kale oo aan iibino for example xaggan tego oon alaabta iibiyo laba alaabood oo keliya ahaan markii hore beydkii baan soo geliyey waxaan iibiyey alaab okay $8 next marka aan idhaahdo automatic wuxuu ugu tegi doonaa alaabtii aan iibiyey marka maxay markii hore 96 bay boqolyo maxay noqotay saas oo socon doonta kaasa marka sum total leeyahay isu geynta guud ama totalka guud okay purchaserka isaguna uu u baahan yahay purchaserka alaabta soo iibsanaysa isaguna wuxuu u baahan yahay totalkii guud ee hoose right click design view aye waxaad ku jiidaysaa halka ay ku qoran yahay AB text box AB dii wadaad soo soconaysaa halka la siman totalka hoose qaybta buluuga ah dhagsiinaysaa ku dhufo equal ka bilowda qaacidadii waxaad furaysaa sum baad leedahay marka hore qaws baad furi shift iyo 9 kii yaraa baad furi kadibna waxaad leedahay QTY qawskii baad xidhi kii yaraa lagu dhuftay baad odhan qawskii yaraa baad furi unit baad leedahay kadibna hadduu cost ku yahayna cost baad qori hadduu price ku yahayna price baad qori marka cost raaya okay qawskii yaraa fur kii weynaana qawskii yaraa xidh kii weynaana xidh shift iyo 0 marka waa qaacidadii yareed waxa ku soo biiray uun labada barakada waaweyn harraa ka xiga iyo zamta okay kana ku dhufanayna isagana text 17 saasarana kadibna waxaan ku qoranaa totalka hadaan doono tantii u soo gaabsano guud bayna odhanaa totalka guud haye kana ku dhufanayna poldi toban nooga dhig baan leenahay xogaa centerka noogee kan kalena sidoo kale isagana toban ka dhig isagana midiggiisa isku dhawaadaan close baan leenahay yes ba hadda maxaan ka tagay inaan calaamadii dollarka raaciyo laakiin waan raacin karaa haddaan ka tago lacala waan ku tusayaa haddaan ka tago maxay noqon doontaa number caadiya noqon doontaa sideen usoo raaciya calaamadii dollarka right click design view halkaasaad ku jiidi format waa inay ka hooseyso laakiin waa goorma markaad qaacidada doorato weeye oo kan formatkii currency iga dhigdee lacag okay waaba intaa keliyaba close aye kadibna okay right click design view kan ku dujid afur hadooran currency lacag iga dhig weeye intaa marka aad sameyso aye kana xogaa waxaad moodaa inuu dhinaca badan yahay dandoona saas ku deenaynaa yes baan leenahay fur haye oo ka calaamada dollarka la raaciyo xogaa inaan san iyo dollarka yaan rabaa right click design view aye wax yar oo waxba ahayn okay colorkana ka bedel baad oran kartaa close yes okay marka saas u socon doonaa kuwaas waa maxay waa sum totalkii weeye totalkii isu geyntii iyo kii kale waayo maxay noo hadhay waxay noo hadhay query wizard wax la yiraahdo inaynu sameyno qofka deyna naga qaatay ee soo laabtay okay inaan maxay ku sameynaa inaan wixiisa isku geeyno marka labada qof hadda wax naga amaahdo waa laba qof oo kala duwan waxaan rabnaa marka qof kamid inuu soo laabto qof kamid inuu soo laabto sida for example Waris ama Xuseen ama Xasan Xuseen okay wax furaya formkii next waan leeyahay date-kii baan soo gelinayaa haya aan soo gelinayaa haddana sidoo kale qofka wax iga amaahdo waa in labadii hore mid noqdaan Waris iyo Xasan Xuseen baa ka dhig Xasan Xuseen wuxuu qaatay sonkorta laba kiish bay $25 $50 bay ahayd isagu soo dhufasho ma leh
next sidoo kale haddana qof kale inoo yimiday aye Maxamed Faarax waxa naga qaatay saliid waxay afar waxaan min 40 $120 $160 qade next soo wadi doonta haddana waa soo gelinayaa date-kii aye waris baan raadinayaa waris waxay naga qaadatay sharaab Coca-Cola 2 kees okay $25 ama $20 next markaan alaabahan sidan u sameeyo hadda haddii aan halkan furo waxaad arkaysaa in Xasan Xuseen 2 jeer la ii qoray in waris 2 jeer la ii qoray in laba la qoray marka waxaan rabaa inuu ka daayo labadan wadeetana ii qoro waris intaas lagu leeyahay Xasan intaas lagu leeyahay Maxamed Faarax intaas lagu leeyahay hadda for example waris waxa lagu leeyahay 50 halkaas iyo 20 halkaas waa 70 marka hadhow talaba aad kaan doontaa inaad ka dhex raadiso de waqtiyo kala duwan buu qofka yimid okay waxaad dooranaysaa account receivable deen bixin create baa tagi qaybta u dambaysa address ay ku qoran tahay ayaad ku wareegaysaa ka dooran symbol ku wareegaysaa okay baad oran kadibna waxaad doorani customer name-ka xabada saraad ku gelin waxaad dooran amount-iga xabada saraad ku gelin kadib inta marka aad gelisay kaliya qofka magaciisa iyo lacagta lagu leeyahay finish baad iska oran marka hadda waxa la sameeyay waa kan la igu soo diray saddex un bay markii hore ahaayeen account receivable table account receivable form iyo account receivable report marka kana ku soo biiray hadda labada xabay isugu jira right click baad u leedahay design view baad tagaysaa wali shaqad ka wada isaga shaqada laga qabanaya okay halkaas waa in group ka soo baxday laakiin waa goorma totalka ku jiiday way marka groupkii soo baxay halkan fur waxaad u bedelaysaa sum good marka inta bedesho at sum ka dhigto halkan total baad ku jiiday halkan aad timiday halkii group ka ahayd group by hadu bedeshay isku geeyay close leh yes marka okay marka kan wuxuu u baahan yahay report laga soo akhriyo okay report laga soo akhriyo sidoo kale isagii oo ku dooran waa account receivable ku wari uu ku dooran yahay create kadibna waxa tagtaa report way saarkeena labadii shay kaliya waa inay ku ahaadaan qofka magaciisa iyo sum of total sum maxaa looga horeysay isu geey totalka qofka way lacagta wada gali labada xabo finish leh hadda halkan laba warisna kama heli karno laba xasanna kama heli karno waxaan ku sheegay in 70 lagu leeyahay waris oo ka 70 Xasan Xuseen in lagu leeyahay $128 haddii marka waris ay noo soo noqoto 100 inta ka dhiman ay qaadato hadda kan ofran by timiday oo waris weeyi next okay aye waris noo raadi aye waxay qaadatay qasa labo okay lacagta ka dhinay imse $30 sodonkii baan ku bixinaa next hadda waris way furnayd waris marka aan gelinay account receivable-ka ee ku wariga u furnaa marka kuma daba darayo halkan wixii yaala wax furan way xid marka dib u soo fur wax kala xaqabanay okay hadda 100 baa waris lagu leeyahay labadan isku eeg meesha ku yaala shaqada ay kala qabanayaan waxay tahay kani waris intii jeeray timid ku sheegay 1 iyo 2 iyo 3 keeni caadiga kan hoose ku warigan wuxuu sameyn doonaa in waris hal mar ka soo qaato 100 jeer hadii timaado waris lacagta hal meel buu ku qoray waa sum of total way suge totalka qofka lagu leeyahay inta isla faanaan filaya okay waa yahay intaas aan ku soo gabagabeynaya marka waxaad sameynaysaa qof walba isku day inta si qurux badan soo sameey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.